daruur ma arke إلين حالي روب كبادا أي دارور ما أرتي إلين حالي روب كبادا أي أرمديو عبد الله وين على روب جاي ماركين ورما وركي ورا وصودا يا روب ما بهرتي ولا سكجان قدينا وجه ما فرلو عبد الله وين أنا والله ماركين ميا ورما وركي ورا وصودا يا روب كرامة كورمينا ولا سكجان قدينا ما هي الدبليو أنا والله لما الله والله كلام قدومية ما بارد سري باشا يوسف أحمد داودي كلام ما أنت كلام ما هي الدبليو لما الله والله تروتا قدومية ما كمان سري باشا يوسف أحمد يا ما أنت كلام سؤال سوي أربعين قدومية أنا كمان سري كلام عبد الله كم السلام عليك عرفاني أنا كمان محكمة ما وحى لغيري بسم الله كهذا كلامان وحى كم السلام وليك إن عرفاني أنا وايد دمين عذر كلام محكمة ما وحى لغيري بسم الله كهذا كلامان وحى محكمة على إن يوقفين وايد دمين عذر كلام محكمة محكمة تطيشوا تمام واسكت بندرسان محكمة على وايد مدهين قدومية محكمة كسي وين ويلك واقبي كورونا يايدي كي أنا وكودي كلامان بالويدي كريم والله كسي وين ويلك كليدي أدوما كورونا يايدي كي أنا وكودي كلامان بالويدي كوريو الرحمن كريم والله كليدي سوارو كليدي أدوما متك كذب كجويون ككنه إذا أنا كتوجنا كوريو الرحمن كورونا كليدي سوارو متك كذب كجويون ما كافي أبو كليدي كتوجنا كوفيدي كورونا كلام المدرسة سمايس أدو ما كرقادو ما كافي أبو أريادا قدومية وعندي كلام المدرسة سمايس من الشيء من قدومية حتى بكورونا أقول كتنو كم كورونا عبد الله نجبوت مية من الشيء من قدومية حتى بكورونا يكفر بمحكمة عبد الله نجبوت مية وكورونا مركب ويدين يبشوا كيمي أريادا هويدا كبابكيو كبيل لغا مدبتا وركورونا مركب ويدين يبشوا كيمي كرين جري وفعلوا على شينا مسوي كريدي اصل هويدا كبابكيو كبيل لغا مدبتا جوابتا كروو كلمه ما كرين جري وفعلوا على كورونا ميشو كريدي اصل كو دختركي اوغادو محكمه سري دولة شينا waxay tiri kama hadli kartid كورونا ميشو كريدي kadibna دختركي اوغادو شينا u dhintaa leeyahay xanuunka dawladda shina waxay tiri kama hadli kartid muddo kadib markii shiina cudurkii ku faafay kadibna dhakhtarkii madaxweynaha shiina u dhintaa leeyahay qabrigii dhakhtarku tagay wuxuu leeyahay haddaan markii koobaad muddo kadib markii shiina cudurkii ku faafan waxa maanta dhacay madaxweynaha shiina qabrigii dhakhtarku tagay wuxuu leeyahay haddaan markii koobaad dictor cudurka 7 qof maray waxa maanta dhacay aad loo digtooy annaguna adigan ku digtay qabriga weydiisay walaal 7 qof maray 7 kuray gaartay marka adigan ku digtay adigoo dhintay raaligelin ku weydiisanayna 7 kuray gaartay war dhakhtarkaas waxa la dhigi marka maanta adigoo dhintay raaligelin ku weydiisanayna madaxweynaha shiina corona فيروسنا war dhakhtarkaas waxa la dhigi jiray liin wiinyan war Soomaalidu qofka nool oo talaa toosan kama qaataan markuu dhintana sida shiinahaas ay xabaasha ugu garaabaan war Soomaalidu qofka nool oo talaa toosan kama qaataan markuu dhintana sida shiinahaas ay xabaasha war maxkamad wax ma أريانا هذا وركان بدل إيش كده في الدنيا محكمة صار من عافية مسوى نجار على war maxkamad wax ma cafisay anigu waxaan idinaa war ma ysan gudoomiye degmada shil halkii waa laga xayuubay xabsigan waa loo taxaabay ما لقى فيه هرطة roobkii hariya fiisiga ka tasay ninkastoo salaande halkii waa laga shaahiye xabsigan waa loo taxaabay suldara waa halis ninkay ragisa seega ما لقى ruuxa la فيه yiri gudoomiye roobkii hariya fiisiga ka tasay ninkastoo salaande ruuxa fiisiga shaahiye war ninkaasi ma ninka suldara boqol waa halis sameysta ninkay war ragisa shacabka seega degmadu ruuxa la yiri gudoomiye isku soo darday intaan guriga ka qabiya ahay urskiisa batay war ninkaasi ma ninka boqol sameysta war shacabka degmadu ugu weyn isku soo dardar asagoo gurigii dhismihiisa weli
haddana waxaan maqli jiray nin daad warmay horlan aray ha haddana waxaan gaas iyo mareero dhaw nin daad ilisa lenka digi gudoomiyaal degma iska jaraha warmay horlan aray ha neefki gaas iyo mareero dhaw ilisa lenka digi gudoomiyaal degma kuwii la jaraha gudoomiyaha Umar Fiican gudoomiyaasha isku tirina warshada shacabka degmada shubis laakiin kuwa kala jiro keligii maaha kuwii la jaraha dadweynaha sidaas gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha isku tirina warshada shacabka degmada shubis haddii dowladda galbeed laga sheego gandahada ka fiiriya hore loo yiri dalka waa toosila galbeed laga sheego gandahada ka fiiriya hore loo warmahaysiine dalka sidii liin sawtaya ku xasuustay lafta gareen tuubiga waalaya ilka mustaazili warma nabadina warmahaysiine muxtaar dalka sidii liin sawtaya ku xasuustay lafta gareen tuubiga waalaya warka naga mustaazili warma nabadina madaxweynaha koonfur galbeed halkii sanooyin baarlamaanka ku filan baarlamaanka warka naga soo madaxweynaha koonfur galbeed halkii shaqeynaya halkii sanooyin baarlamaanka ku filan yiri baarlamaanka warna miyaa waxaan maqli jiray wax ka hormay marka damacaano sagaashii koodii meelaha soddon sano warna miyaa madasal eemanka 70 adeer meeqa sana jirta yeleeri sagaashii koodii meelaha war waxa soddon sano baa jiriyay madasal eemanka 70 aga waa tariya marka ma injeede ma iska jari ka saasana lafta garan tiriya asmaa la tiriya kala kooway bari baan ku dhax jirnay ma waxa la tiriya marka ma injeede dara la sidii iska tiriya lafta garan tiriya madfac xali roob ku badaaya kullu ma san qoriyo yool baad la yiraahdo kaasi raxa badan laga ridaa meesha ku dhacay markii loo qoriga madfac ayaa madfac la ridaa ma san qoriyo markii lafta garan waa yool baad badan laga ridaa nabadiyo nolol meesha ku dhacay markii loo ayaa madfac la ridaa markii lafta garan waa yool baadkii nabadiyo nolol warbaahinta way ku beerantaa maanta uu fadhiga kalfadhiga baarlamaanka madaxweynuhu noqdadu ku jeedinay Soomaaliya warbaahinta way ku beerantaa maanta uu warwarka naga fadhiga baarlamaanka madaxweynuhu noqdadu ku jeedinay Soomaaliya kii saddexaadne war gurigiisa ku qoosleeya war gudoomiye xogeenka baarlamaanka mudane gudoomiye war ninkaas Nairobi kii saddexaadne war gurigiisa ku qoosleeya war gudoomiye xogeenka baarlamaanka mudane mudaaw war ninkaas Nairobi ku xayiraya war maalin hor ma bani ku taataay arada waxaan maqlay ka qodtay ka kala faniinay war inta baarlamaanka ku xayiraya oo kaalada goorma dadkana la xayiraya arada waxaan maqlay ka qodtay ka ka faniinay war inta baarlamaanka ku xayiraya labada hor dadka dhibsadeen iyo reer bawarnimada gaadeen jirkiiga dawladii la laga qayb galay warna miyaa kala fadhiga baarlamaanka online lagu qoro warna dhibsadeen Abdulrahman bawarnimada gaadeen jirkiiga dawladii la laga qayb galay xilligii uu dhamaanay kala fadhiga baarlamaanka online lagu qoro warna Cabdiqaasim Abdulrahman way kala kulay arinta baarlamaanka hawsha waxa la wareegay xilligii uu dhamaanay qayb galay shirkii dawladii cad lagu soo dhisay xilligii uu maarin way kala kulay maareysha waxa la wareegay wareejinta qayb galay shirkii waxaan shirka hagay qaramada midoobay xilligii madaxweyne Abdullaahi Yuusufna markii madaxweyne maareynta uu maarin way kala kulay wareejinta wasaaradda cadaalada ayaa isla tagay qaramada midoobay kala kulay waxa la wareegay markii madaxweyne Hiigana hogaaminay way kala kulay madaxweyne Xasan Sheekhna tanaasulkaas la badbaadiyay hawshii kala kulay waxa la islaamay marka hadda wuxuu yiri Hiigana hogaaminay farmaajo la wada madaxweyne Xasan Sheekhna in tanaasul la yimaado badbaadiyay ama faragelin islaamay marka hadda wuxuu diyaar garoobo madaxweyne farmaajo la wada midkood ayaa u furan inuu tanaasul la yimaado ra'iisul wasaare ama faragelin iyo in dalka dibadiisa la tago uu diyaar garoobo guurka dalka khayr xasan abshir iyo nuucabdi haddii saarka korinta uu qayb ka noqdo xisaabta ku darsado in madaxiisa lagu heshiin doono sidii xasan abshir iyo nuucabdi haddii saarka korinta uu qayb ka noqdo xisaabta ku darsado warlangi ra'iisul wasaare lagu heshiin doono sidii kambala warlangi ra'iisul wasaare madaxweyne tootiyo fado waa ambaareen ku soo dhamaystireen warwarkan
haddii uusan wax dambi lahayn xorriyadiisa hala siiyo ورئيس عاصمة النيجيريا الصومال قرما لصومال agoon sabna way sameeyeen kuwa haddii uusan wax dambi lahayn xorriyadiisa hala siiyo ورئيس عاصمة النيجيريا الصومال قرما لصومال agoon sabna way sameeyeen kuwa adoon maxamed cabdiwahaab warmadawiinaga ballanqaadi cadaaladda banaanbaxa goobjooga qofaan maxkamad la geeyey maxamed cabdiwahaab in la iska haystaa sharci ma الله هردا banaanbaxa goobjooga qofaan maxkamad la geeyey in la iska haystaa sharci ma الله هردا ugu dambeyn afartii siyaasa awan hatta afartii iyo afarhamin iyo afartii afarmaal wada hirin haqshay helay turjumaanka shuuqi ma isku haystaan weli war gudoomiye hore cabdi maxamed سعودي muwaadin kasta isaga ayaa taariikhdiisa dambe waxa lagu qorayo tumaanaya war gudoomiye hore cabdi maxamed maanta ayaadna fursadeeda muwaadin kasta isaga ayaa musiibada taariikhdiisa dambe waxa lagu qorayo tumaanaya samaan masuulka ha noqon heeryadiisa maanta ayaadna fursadeeda haysataan gudoomiyaha xisbiga ha noqonin musiiba ka maxaashi war ka daga halalna ma baahan ay lahadanay war ha xisbiga noqon tahay heeryadiisa cunama يو علي احمد جلال سنه war gudoomiyaha xisbiga waa ka shaqeeyay ورتامي حسبيسا anigu xisbiga waxaan ka baranaa يو علي احمد جلال aniguna cabdi ku soo yartaanu dabaaldagoon lagu soo dhisortay ee taageerada iska lumi yartaanu dabaaldagoon hilowga lamihii meherkaaga badadka muddadii laynoo qabtiya maandheedkii qoysaska hortaa lagu kala tegiya xeeroosaadkana waqtigu waa gabangalamihii meherka iyo badadka arooskanagu dhammaan runbaa kugu soo heshay qofkaasi nagula hadlayo dad waaweyn waqtigu waa war huunno qofkaasi nagula hadlayo dad waaweyn beska dhegaysanaysa أرى وركاس وودي حمر يا حلو حرام يا حلو war huunno war langu muwaara ka dhaadalo ama liyaabtan isin war yaa xishoona